soo dhawaada saaxiibayaal dhammaantiina sidaad u wada dhantihiin meel walba aad dunida ka joogtiin waxaan idinka codsanayaa haddii aad youtube ku cusub tahay fadlan subscribe saaro sidoo kaleetana like inoo saar muuqaalka gambaleelkana furo muuqaalkani marka aad daarato waxaan kaa codsanayaa si aad muuqaalka u fahanto fadlan meel buuq ah haddii aad joogtid ka bax oo meel jawi degan tag waxaan rabaa waxa aan kuu sheegay inay kaa dhaadhacaan aad fahanto kadibna aad lacag ka samayso adigoo aan fahmin su-aal ha ka keenin muuqaalka ku cesho 3 jeer 2 jeer ku cesho fahan kadib ku dhaqaaq wadada aan ku tilmaamay waxaan ku dhahay waxaan rajeenaa inaad fahantay haddii aad taqaano forex ama hore aad u dheeli jirtay ama aad lacag ka sameeyay jirtay forex waxaa jaanis weyn u haysataa 1xbet gudihiisa inaad forex ka dhex ciyaarto imaa aadar halka ku qoran tahay finishal ka tag forex-kaada halkan ayuu ku dhex yaalaa okay marka aad dul taagan tahay kulanka aad u baahan tahay inaad saadaaliso aad lacagta ka samayso hoos rag walaaltay marka aad timaado hoos ayaad usoo dhaqaaqaysaa qoraaladan halka ay ku qoran tahay first goal team marka aad timaado qaybta koowaad ee dhinacaada gacantaada bidix soo xigi doonto waxa weeye ama waxay u dhigan tahay 1 daqiiqo ilaa 26 daqiiqo ayuu goolka koowaad imaan doonaa qaybta dhexe oo ah no goal oo micnaheedu tahay kulankan wax gool ah lama dhali doono qaybta saddexaadna waxay ka dhigan tahay 27 daqiiqo ilaa 9 daqiiqo ay imaan doontaa goolka koowaad oo la micno ah 1 daqiiqo ilaa 26 daqiiqo wax gool ah la iskama dhali doono waxaan rajeenaa inaad si fiican ii fahantay fadlan inta aan qaybta xigto u gudbin waxaan kaa codsanayaa qayb muhiim ah oo aad jeceshahay inaad lacag ka samayso balse aadan fahamsanin haddii ay jirto qaybta hoose ee commentiga iigu soo qor kulankaas aad daalanayso markaad dul taagan tahay hoos ayaa usoo dhaqaaqday halkan ayaad click siisay will there be extra time oo la micno ah ma leysla aadi doonaa extra time adaa su-aashaas lagu weydiiyey waxaa dhahday yes ha 9 daqiiqo markii ay dhamaato bridge ay ku dhamaanay ka bacdi extra time la aada no haddii aad dhahdan waxay ka dhigan tahay ma jiri doono waqti dheer extra time oo 9 daqiiqo ugu horeyso ayaa lagu kala bixi doonaa kulanka waxaan rajeenaa inaad fahanto okay tanna sidoo kale hoos markaad timaado halkan ay ku qoran tahay substitute player to score winning goal xidig bedel lagu keenay ayaa dhali doono gool macnaha goolka ugu horeeya ma aha goolka ugu dambeeyna ma aha waxaa lagu dhahay xidig bedel ku imaaday ayaa dhali doono gool tusaale kaleeto kulankaada ugu dambeeyay ee Real Madrid soo dheeshay haddii aanan qaldaneen Man City xidig bedel lagu keenay ayaa dhalay gool yes iyo no markaa kala dooranay yes waa ha no haddii aad dhahdana ma dhalinayo ka dhigan tahay waxaan rajeenaa inaad muuqaalkan si fiican aad u fahantay si buuxda ayaan ayaantan usoo laaban mashquul badan oo na haystay iyo arrimo badan insha Allah alxamdulillah waan soo xalinay insha Allah muuqaaladeena horey ayaan u wadi doonaa waxaan rajeenaa inaad muuqaalkan si fiican ugu faa'iiday oo wax badan aad ka baratay sidoo kale haddii aadan ka faa'iideysan lacagaha gunada ee bixiso 1xbet waxaa isticmaali kartaa haddii aad reer Muqdisho tahay promo code-ka xamar akoon cusub aad samaysanay magacaada iyo waxaada in lambarkaada markii aad geliso ama akoonkaaga halka ay ku qoran tahay promo code-ka ayaad u isticmaali doontaa xamar oo far waaweyn oo qaabkaas ah haddii aad Puntland joogtidna Puntland oo qaabkaas ayaa u qori doontaa Somaliland haddii aad joogtana Somaliland oo qaabkaas oo noocaas ayaa u qori doontaa marka aad dhigato tusaale kaleeto kulanka caaba rabtaa inaad saadaaliso $100 ayaa dhigatay 1xbet waxay ku sii doontaa $100 kaleeto aad ku ciyaari karto iyo $100 kale oo aad 1x games ku ciyaari karto haddii aad su'aalo ka qabto ama qaabka ula bixi lahayd lacagta gmail-kan igu soo qor sidoo kale shaxda kulanka caaba Real Madrid iyo Liverpool iyo kulamo kaleeto oo dhici doono waxaan soo dhigi doonaa qolka Telegram-ka in waxa ku qortaa Mira Show 1 oo qaabkaas u qoran ama linkiga waan ku soo dhigi doono description-ka muuqaalka iyo comment ugu horeey fadlan ku soo biir nala cabi mahadsanid